gudoomiyaha gobolka Sool ayaa gaaray deegaanka Qoriley waxaana uu gaarsiiyay dadka ku nool deegaankaasi deeqa kala duwan. warkan waxaa soo diray wariyahayaga Qadar Tarabi. gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere ayaa gaaray degmada Qoriley ee ka tirsan gobolka Sool waxaana ku weeliyay mas'uuliin ka socota hay'adda NRC oo deeq lacageed gaarsiisay dadka danyarta ay siga kala dambeeyeen abaarihii kala duwanaa ee ka dhacay waddanka khaasatan abaarta imika ka jirta gobolka Sool. ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay odayaasha iyo waayeelka magaalada Qoriley iyagoo laga mahadceliyay gudoomiyaha gobolka iyo hay'adda soo gaarsiisay deeqda. sidoo kale odayaashu waxay ka hadleen arrimaha bulsho iyo baahiyaha kala duwan ee ka jirta magaalada Qoriley. gudoomiyaha gobolka oo hogaaminayay dhammaan waa soo dhaweynaynaa waadna mahadsantihiin dhammaan waad mahadsantihiin hadday tahay gudoomiyaha gobolka oo hogaaminayay hay'adda hadday tahay hay'adda soconaysay intaba waa soo dhaweynaynaa waxaanu kula shaqaynaynaa nabadgelyo waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan boqolkiiba boqol khayr allah idin siiyo waad noo timaadeen annaguna waydin ajiibnay sidaasay inoo tahay hay'adda waxaanu doonaynaa wixii kale oo ay nagu xidhi kartana inay nagu xidho sidaasa inoo ballana anoo ku hadlaya codkayga hore duqan laascaanood in magaalada hay'addu u qabato ay MCH ka wax ka qabato iskuulka ay wax ka qabato hadday riig keeni karto biyo gelinta magaalada riig ay noo samayso waxyaalo fara badan ay wax ka qabato laakiin haddii waxyaalaha noogu darani waa MCH ka iskuulka wax ka qabato iyo riigga saddexda arrimood baa noogu daran aad iyo gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa maanta iyo maalin kale aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa hay'ad kastana waa soo dhaweynaynaa ku yarna waa soo dhawan jiray MCH ka magaalada laba waxa u dhisan qol yar baa u dhisan labada qol dayr ma laha waxyaalo fara badan baa ka dhiman waxaa dhiman waxa weeye MCH waxa loo magacaabaa inay tahay meel maaragtay dumarka iyo ay ku umulaan waa laba qol labada qolba way buuxaan meel hal sariir laga dhigi karaa ka bannaan sidaa darteed waxaan u baahanaa baahidayada ka mid ah in dhismaha waxna looga qabto waxna loogu daro inta annagaa dhisanay magaalada dhisatay hay'ad dhistay ma jirto hal hay'adoo dhistay ama wax ku darsatay ama shilin kuna ma jirto magaalada dhisatay iyo dadkeeda dib qurba joogta waa. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere. ilaahay waa mahad leh suukan keenay maanta halkaas nabada hay'adda NRC Norwegian Refugee Council oo ah hay'ad caalami ah inay deegaanka Qoriley ay ugu tala gashay inay deeq lacaga waliba kaasha inay dadka jilicsan ee agoonta dumarka maatada dadka waxba heli karin soo barakacayaasha dadka dhibaatooyinka saameeyeen xoolo abaaru kaga dhamaadeen inay ugu deeqdo tiro dhan 250 qoys oo reer Qoriley oo dadka deegaanka 250 qoys inay siiso bishiiba lacag dhan $85 runtii waxaan dadka deegaanka Qoriley ka codsanaynaa waxay kow ka tahay arintani deeqa fara badan dad maanta si wanaagsan ula shaqaysan hay'adana dhammaan hay'aduhu dhan way imaanayaan halkan waan idila shaqayn doonaan hay'addan NRC oo runtii wax badan deegaankeenan iyo gobolka ka wada waxay Qoriley u garatay maanta inay noqoto meesha ugu habboon oo tirada inta la eg 250 qoys oo ay ka diiwaan geliso way ku mahadsan yihiin runtii dadweynaha Qorileyna waxaan ka codsanayaa inay si fiican ula shaqeeyaan hay'adda soo dhaweeyaan nooma yimaadaan deeqa nooma yimaadaan caawimooyinka laascaanood iyo magaalooyinka u dhow lagu qaybiyay nama soo gaaraan maanta arrinkiini waxa ka jawaabtay iyo cabashadiina NRC ba degdeg uga jawaabtay runtii mahad gaaran u celinayaa hay'adda NRC waxaan kaloo dadweynaha reer Qoriley ka codsanaya waad aragtaan xilli adag baa lagu jiraa deegaanka kaliya ilaahay haba yaraadee roob yar ka daaybatiin biyo yar oo baraagaha ay u galeen sagad iyo salaan iyo waxay doonaan ma noqdeen meel kale oo wadankeena dhan gobolka Sool intaas kala gashay ma jirto ilaahay dadka idin kama jecla laakiin waa calaf gaar oo idsiiyay waa arrintan idin ku eegayo runtii oo imtixaanka adduunka kamid marka ummadda kale wax aan haysan adig kaliya lagu siiyo waa wax weyn taana waxaan idinku codsanayaa idinku la talinayaa
ummadda soo guurtada idin timid dadka biyaha idinka doonaya waxa yar ilaahay idinku deeqay inay dadka yeelan aad dadka siisaan qadar Talebi Somali News magaalada Laascaanood